shaandho daqiiqda marka eeg daqiiqda marka dukaanka laga soo iibiyo ma qoosh baa laga wada dhigaa mise shaandha la qaata dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed tiray qabalum waa xoolaha qura looma sahamiye hadalkana waa loo sahamiyaa meesha ma qabtaa mise ma ku haboon yahay hadalkana waa inaa soo heeyo tiray qabalum baa ma ka dhigay block buu saaray hadalkiisii marka waxaan dadka anfacayno dhan block waxay ku mahmaahan ya af walam tabaq bi ay taashim afku ee gacantu haday ku murkacato waa la soo celiyaa halkeedii baa lagu soo celiyaa afku haduu ka murkacda ka war ma soo celin kartid ma kii bariga sidaan yiri baad noqon adna waxaad ku xiiqin sidaa ulama jeedin marka taxad rurtaaba dheeldheeliga caguhu weynay carruurta markay raad barad yihiin ciira ee adoo cirrale inaad ciirday waa sheem oo hadalkaagu dadka isku diro waa ceeb marka hore waan idin salaamayaa laptopka weyn ha ka nicina waa 5 daqiiqo laptopka weyn ha ka nicina marka hore aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanka bacdi waxaan doonayaa maanta barnaamijkan inaan kaga qayb qaato in yaro 5 daqiiqo wax la yiri waqti gaaban hadalkeedna kulay iska kooban waxaan doonayaa inaan kaga qayb qaato waxyaabahan la yiraahdo social media gu dhibaatooyinkan uu bulshadeena ku soo kordhiyaan in yar kaga hadlo waxa weeye amba youtuber de amba facebooker de amba tiktoker de amba everythingism whatever it is aad adeegsato waxa weeye qowlku amba hadalku nimcooyinka ilaahay nasiyay buu diiniyan kamid yahay oo calamahu bayaan inaynu luqada ku hadalo ilaahay wuu inagala xisaabtami doona waxaan insha Allah ta'ala ka hadli doonaa suugaanta Soomaalidu amba ragii gabi jiray amba oraahda lahaa ee taariikhda lahaa siday uga digtoonaan jireen suugaantu waa shay qofku dareenkiisa uu ku muujiyo marka diiniyan buu noqon karaa dagaalamo noqon karaa heshiiyo noqon karaa weerar uu noqon karaa dhiiga daadiyo noqon karaa nabadda ku sugu noqon karaa whatever it naamnimba dareenkiisu halku yahay buu ula kaca marka wuxuu yiri Ibrahim Gadle Allah u naxariistay wuxuu maanso inuu kugu duul ninna maalin kugu dood ninna dooni kugu doon ninna darajo ka dhigay ninna nabarka kugu damaq ninna dakharka kugu dhigay ninna nabadda kugu dayr ninna ololka kugu dami ninna nabadda kugu didi maanso duciya khayr nimbadawgu kula rabo dareenkiisa kugu mari waxa weeye xaga khayrka in loo xagaliyay marka inaga teenu tahay waxa weeye wuxuu doodaan Allah u naxariistay afxumada ummadda hadallada nacaybka ah ee turxaanta dhexdhigaya ee cadaawada dhexdhigaya ee nacaybka dhexdhigaya ee ummadda iska horkeenaya ummaddu inay dad walaal ah noqoto ee midnimadeeda wiiqaya waxa weeye hadalladan turxaanta leh ee lagu faafinayo social media gooy marka youtuberadu shar inta like iyo share badan ku raadinayso ilaahay hada khayrna waa kugu rasaqa naam khayrkuna waad u adeegsan kartaayo intaaba ilaahay inna allaha yarzuqu man yashaa sawma ilaahay waa kugu arsaqa shar waxa ku weydiisanin youtuberada maanta halkan waxaan ka leeyahay walaalayaal ilaahay wax khayr qaba aynu ku weydiisano ummadana wax khayr qaba oo anfaca aynu ugu faafino dareenkaygu weey wuxuu doodaan Allah u naxariisto abwaankii weynaa wuxuu kuma daro naxwaha laangariyo weer la leemale xoolaha qura looma sahamiye kelmadda ka soo yeedhaysa waa loo sahamiyaa hadayna ummadda anfacaynin oo ina ummadda wax u taraynin hadalkaagu waxa wanaagsan inaad ka aamusnaato ta kale wuxuu yiraahdaa raawi Allah u naxariisto gabagiisii sirta nolosha waxa ku jirtay garashadu sahray ruuxa sad u gaara weeyaane hadduu saamiga yeeshay qurux ma leh saluugeedu dadku siiga diid maaha sogob iyo ri weyn maaha sumal iyo laxdiis maaha rati iyo sabeen maaha falka iyo sugnaantiisa socodka iyo abraartiisa dhaqan sida xishoodkiisa dabar iyo silsilad haysa iyo suun ma dhaafaan ah
وحصوفك حولها كجسوا عن يهوي احترامك هي إسقدرينتا هي وذنولان شها حولها محينو كجد ونه دينيا وحوي يدتكو هداي طريق إلهي كبيران حولها يجا كبادسن رادين تحولها وحكا هذا جمنا هذا إلا سور رادي مركا waxa wanaagsan inaynu arintaas ka digtoonaano haba ka soo baxsatay youtube darka wuxuu doonaha qoro inagu hadaba inagu as ibn aadan maskaxdaadu yay noqon maqal lagu leeyahay adigu ma sanduuq ciidanteedu ku fushataata wixii ibraahim gadle allah u naxariiso maskaxdaadu yay noqon maqal lagu leeyahay lagu furo muftaaxiyada hadba lagu muraadsado magacaagu yuu noqon mid xumaan ka marakaca oo micin qaada haw dhiman aqligan iyo maskaxdan iyo intan adiga iska leh waxaad ku shubanayso wax adigu aad ku anfacdo ee anigu danaan leeyahay aan kugu fushin ta kale wuxuu yiri tima cadde marka doonaysa inaad hadasho marka doonaysa ummadda inaad wax u sheegto marka doonaysa ummadda inaad tilmaanto hadalku intuuna ka soo bixin waa inaad muxuu u baahan yahay wuxuu yiri aqli dhowrsan iyo markuu cunaha soo taagmo arab layliyan laab culan hadii la iskatiin waayo aya iyo wuxuu ka noqdaa caws kaliishada wuxuu yiri caruurtaaba dheeldheeliga caguhu weynay caruurta markay raad barad yihiin ciirciira ee adoo cirrale inaad ciirciirtay waa sheem oo hadalkaagu dadka isku diro waa ceeb cirranimay ku taalaan ahay oon ciirin warigii ragun baa iscayntaariya uu ka cadilaada makii barigii sidaa yiri ahmaarta tiraahda kulli facebook geedu soo dhigi doontaan waxay ku mahmaahan ya af walam tabaq bi ay taashim afku ee gacantu haday ku murkacato wala soo celiya halkeedii baa lagu soo celiya afku haduu ka murkacda ka war ma soo celin kartid makii bariga sidaan yiri baad noqon adna waxaad ku xiiqin sida ulama jeedin marka taxad كلمة كاسو يريسين ضدك هرتجينو وإنه ماركتي إن كتحدرنا وإلى عرب طلب لما نصدو مربي كوجلا عرتا ما نصدو إيه هذا الكلام إيه كلمة كاسو يريس هدانة كتحدرين إيه ذا لفتي ذا ولا قوم ومين دونا وإلى إسلاتي مع دوحة وإلى مصر صاروا مركان ظاهر وصوهم ما نصدو هذا الكلام مصر سريته صدقوا إلى البيت كجبية وصحر كيشة وأنا هذل كرا وريك تفلقها أيام تورالج شيكون هديل الربو أم بهذلون هديل الربو شيكي هذلون هديل الربو تدمر قواه الله ولا لا هيو ما بينبا ويا هي معنا ما سمينا يا محوس ومدة وانفع يا قول كان يا هذا الكلام كو هالليا للنهر مركم وقاري كراهيل ولالكي هدينا الحمانتا يدلك يدينين كلاقادك تبدأ أنك تشوفنا شرعي قد عد إله دمبركيدو waa jahanaba iyo dogobkii naareed muxuu yiri timacada dul iyo hoos waan ugu dhagay waa dhagaxeed tiray qabalum we have to think wide si balaadan inaynu far wuxuu yiri sidiq wiilal bays kaga gabya uu saxar ka yeeshay salaankiisa goortaan koro in sabab ilaalaysto subaxdan haloosiyo tixaawaan sir goyn jiray salka aniga oon meel u dhigin wali ma sii deyn ee markaan sahamiyaaban halkii sayr la mariya xoolaha qura looma sahamiye hadalkana waa loo sahamiyaa meesha ma qabtaa mise ma ku haboon yahay hadalkana waa inaa soo heeyo waxa uu yiri boodari wuxuu yiri hadaa qaba ma dhaameen hadaan hadalku toosnayn hadalka caruurtaadu muxuu kaga soocan yahay hadalkaagu ka caruurta muxuu kaga soocan yahay haduuna macna sameeynin ka caruurta waa la mid hadalkaagu wuxuu yiri hadaa qaba ma dhaameen hadaan hadalku toosnayn ha yeeshee warkaadu hubin taqaan ها أنت هذا أورن أنت أنا شير إياه 5 إياه سيفا فنن وحنا أمدا أنفع يمية هي we have to be شاندو دقيقة مرك دقيقة مرك الدكان كان لقى سوي فيديو ما قاش بقى لقى وده دقام شاندا لقاتا
shaandhaa la qaataa intii taa dhaafta imtixaanka qoosh way noqotaa intii kalena gudaafaday tagtaa you have to be a filter you have to be a filter hadalka intaynaan faafinin waa inaan bahalki aamusnaantu maxay tiraa Soomaalidu afdaboolan waa dahab rag baa hadalkoodii iyo gabaygoodiiba qufulay Allah naxariisto tima cadaa kamid wuxuu yiri qorshe gabay daahirow baryahan iguma qoomayne ma qotominin maansooyinkii qarada weynaaye quus baan ka joogsaday intaan geeshku qowdhamine waataan araartaba qafilay bariqalaadki tiriyay qabalan baa ma ka dhigay block buu saaray hadalkiisii marka waxaan dadka anfacayno dhan block waa inaynu saarnaa wixii ummadda anfacana waa inaynu soo deynaa ta kale waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex sadar oo uu leeyahay abwaankii dhoodaan Allah u naxariisto wuxuu yiri aqli gacalkii toosaa fakara nolosha toolmoon mana shiiday anigu aqli gacalkii toosaa fakara nolosha toolmoone maskaxta cajabkeedii batay oo tamani ooyeysa oo cadala tiicdaaba waa taydan oo kale intaasaan ku koobiya aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrimaha bulshada iyo waxaan kaga qayb qaadanaya inaynu ka digtoonaano afxumada iyo waxyaabaha bulshada isku diraya aad baa u salaamantihiin